safiirka Somaliland ee dalka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed waxa uu ka hadlay arrimaha wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya oo dhawaan ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda Soomaaliya in iyadu lahayd dib u dhaca wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ku yimid ka socday dalka Djibouti. Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed oo telefishinka bulshada wareysi ku siiyay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn yiri runtii aad baan ku mahadcelinayaa TV-ga bulsho iyo Luqmaanba iyo teamkaba su'aalaad wanaagsan sad Luqmaan oo la socoto wadahadaladu waxa ayna dib waanagii lagu heshiiyay labada dhinacba in guddi farsamo la sameeyo oo 15 cisho mar la isku yimaado ballantii horeysay waxa 12 Juulaay marka qolada Soomaaliya ayaa runtii cudurdaar sameysay shirar baa socday yarama xagga Dhuusamareeb iyo arrimo dhexdooda hana la siiyo waqti week ba loogu daray ballantii kale waxa 19 Juulaay inuu shirku hadana dhaca guddiga farsamada isku yimaadaan tiina may dhicin taa 19 runtii khalad xaggooda ka yimid oo runtii aad u weyn ay sameeyeen oo ah in ay saad ogtahay heshiisyo ayaa lagu gaaray wadanka Turkiga 2013 iyo intii ka horeysayba ay ahaayeen heshiisyada waxa kamid ah qodobada in 6 qodob la fuliyo 6 qodob sad ka war hayso marnaba ma ay suurtagelin inay qolada xamar ama dawladda federaalka baan iraahay waxba aan ka fulin marka tan 19 shirka dhici lahaa waxa ay ku soo dareen marka qodobada lagu heshiiyay ku yara noqday waxa ahayd qof asal ahaan Somaliland ka soo jeeda in aanu ka soo qayb gali karin wada hadallada isagoo ka soo jeeda dhinaca Soomaaliya marka saddex shakhsi oo asal ahaan Somaliland ka soo jeeda ay ku soo dareen taana de qodobo laga heshiiyay oo hore ay ahaayeen in aan lagu soo darin oo shirarkan ku sheegay ka ugu dambeeyay 2013 wad ka warayso guddi baa jiray markuu Maxamed Biixi iyo wasiirka arrimaha dibadda ay tageen lagu soo daro markii maalintii ku xigtay ay soo noqdeen marka waa heshiiska xaggooda runtii mar walba ka buray marka maxaa haydooyeen waxa ahayd runtii qodobka ugu muhiimsan ay jabiyeen anagu mar walba diyaar baan nahay xukuumad ahaan caalamkana waan u sheegnay marka iyo imikaba laakiin waxa doonada iyagu mar walba runtii xaggooda in aan mar walba ka keenaya marmarsiyo ama wax carqaladeen ah in aanay marka shirka la isku yimaado kale aanay diyaar u ahayn laakiin marka hore afka ka leeyeen afka baarkii diyaar baan u shirkana wada dhacaan haddii halka wada hadalada dul istaagaan Ambassador intii waftiga Somaliland joogay dhowr jeer hadallo kala duwan baa ka soo yeeray mar waan ka baxnay mar waan Djibouti baan na dhex gasho waan ku noqonay haddii marba Djibouti dhex galayso marka hore maxaa keenay wada hadalada ka baxdaan runtii waxa weeyday wada hadaladu dawladda marba stage bay marayeen mar waxa marba habeenimada 12 habeenimada ka baxaynay dawlad kulli wad garanaysa laba dhinac wada hadal meel iskugu yimid hadaladu way kululaanayaan waxyaabo badan qodobo badan baa la soo hordhigayaa waxyaabo badan baa laga murmayaa marba maalinba stage bay maraysa maalin waxa laga yaabaa in certain area ku heshiino maalinta dambe aan ku heshiino niraano areada runtii nama qanciso hadaan xukuumadda nahay ama Soomaaliya ama shacabka Somaliland ba runtii maalinba stage maraysa laakiin runtii ultimately saad ka war haysan ama ugu dambeyntiiba kullay wasiirku waa kii hadlay Saciid Sulub gudoomiyaha maxayda guurti waa kii hadlay sida gudoomiyaha guurtida uu sheegay habeenka u horeysay wasiirkuna Saciid Sulub waa kii maalintii dambe hadlay waxa weeye nimankani mar walba maxay arrinkan inay serious ka noqdaan baa ahayd dad wanaagsan oo runtii anigu ma aflagaadeen ma oranayday waxba ma garan laakiin waxa inay la socdaan waaqa waxyaabaha lagu heshiisyada waxa dhacaysa marka qaar waxa heshiisyada in anagu sidanay xaggooda aan waxba heshiisa aan kala socon lagu heshiiyo hore marka marba stage badal la soo gaaray marka mar walba waxay noqonaysaa inaan qancino una ruuxana lagu heshiiyay documentkii lagu heshiiyay waa kan qodobkaas lagu heshiiyay marka aan marka iyaga aan ka dhaadhacno laakiin waxa runtii anigu aanu arkayay maalin heer bay taagnay maalin waxa laga wada hadalada si fiican u socdaan maalin waxa laga yaabaa in maanta kale malaha way joogsanayaan oo wada hadalada ma sii socon karayaan marka qofbada kulay angal buu ka arkay telefishinka bulshada sida xoog ku helay Ambassador waxa jirtay mas'uuliyiin Somaliland oo baasaboor ajnabi ah ku yimaada Djibouti marka la casuumo ma hawlo shaqo yimaadaan iyadoo baasaboorka Somaliland adeegsan karaya
waa maxay fariinta aad u diraysaa haddii arrintaasi jirto runtii waan ka warhaynaa waana muhiim arrinkaas su'aal aad u wanaagsan baad weydiisay haa waa dhab mas'uuliyiinta mar walba waxaan ku boorinayaa levelku doonaba ahaado in ay soo qaataan baasaboorka Soomaaliland maadaama la ogol yahay in la fiiseeyo aanay soo qaadan baasaboor ajnabiga runtii qaran baan nahay baasaboorkeena waa inaynu iibinaa ande moogta ka dhaadhicnaa caalamka aniga kula hadlay baasaboor Ingiriis aan ma isticmaalo bir hore intan Afrika iyo markaan tagiyo muhiim ah tameel fiisa loo baahan yahay ma aha inta kale Djibouti markaan jiro baasaboor Soomaaliya ma ku jooga waxaan sa diplomatic visa oo runtii oo ku deganahay wadanka marka marna uma qaato baasaboor ajnabi dibadda marka tagiyo waxaan mar ayga fursan weedoon ma aha ama shir muhiim dibadda loo tagayo oo degdeg oo kala hadii ay suurta gashay kaagan Soomaaliland inaan fiisa ku yeelayna aan ku qaato laakiin waxaan ku boorinayaa mas'uuliyiinta mar walba baasaboorka Soomaaliland inay la yimaadaan runtii sharaf bay u tahay qaranka sharaf bay u tahay sumcadeena sharaf bay u tahay baasaboorkeena inaan hirgelino dadku ay fahmaan inaan baasaboor Soomaaliland u jiro marka mar walba inaan soo qaataan ku dhiirigelinaya xuduudku waa xidhnaa Djibouti Soomaaliland inta noogeen ma la furay oo hadda caadi ma loo shaqeynaya dowladda Djibouti xidhay oo madaxweynuhu dekreeto ku soo saaray xuduudda marka waxa la furay bishii 5teedii bishan ku jirna November marka caadi bay xuduuddu furan laakiin badeecaduhu marnaba iyagu ma istaagin markii hore xuduudda xidhan dhowrka bilood hore badeecaduhu way socdeen ganacsiga labada dhinacba sanadkii waxa mara $100 milyan wax laga dhoofiyo Djibouti wax ka soo dago xageena soo gala xageena runtii cashuur badan baan ka helnaa xukuumad ahaan oo markii siilaa yimaadaba lagu cashuuraa alaabta xagga ka timaada Djibouti marka bishan 5teedii ayaa xuduudda la furay dhawaan halka waxa socdaal ku yimid wasiirka kalluumaysiga xanaanada xoolaha beeraha iyo biyaha ee Djibouti heshiis bay wada socdeen Soomaaliland heshiiskaas muxuu daaranaa heshiiskaas wuxuu daarnaa runtii markii uu horeysay wasiirka biyuhu Maxamed Axmed Soomaali sida loo yaqaanaba Cawaale ama Maxamed Cawaale wuxuu ahaa heshiis runtii laba geesooda oo ah labada jamhuuriyad Soomaaliland iyo Djibouti wuxuu ahaa mashruuca biyaha wuxuu ahaa mashruuca milixda wuxuu ahaa mashruuca taanku sheegay biyaha laga xirayo Saylac saddexda marka iminka hirgelintii u horeysay waxaan wasiirka iminka waxa inaan wada noqono wasiirka Djibouti waxay ahayd inaan arrimaha saad arkaysaba halka labadii agreement baa iminka jira in aan u joogo in ceelasha iyo meelaha laga qodayo dhan isla eegna wasaaraddeena horumarinta biyaha iyo khayraadka runtii aanoo report badan sida aan ku noqdo xaqii meelaha baahiyaha badan waliba ay ka jiraan dalkeena aan ognahay inta badan bariga hada goor abaara dhaca inta badan ceelal badan bay u baahan yihiin galbeedka sidaas leeg marka waxaan isku daynaa dalka oo dhan insha Allah inaynu hawsha ceelasha intii tabarka labada dawladood runtii iska kaashan karayaan aan ceelal badan runtii la qodo hadii Ilaahay dhaah sidoo kale Soomaaliland waxa socdaal ku yimid wasiiro kale sanadkan gudihiisa oo ka mid wasiirka ciyaaraha heshiisyo kala duwan bay Soomaaliland wada galayeen balse gudiga heshiisyada nooga waraniyo wixii aad Soomaaliland ay ku heshiiyeen wasiirka ciyaaraha waa kii yimid runtii waanagii ogeyn waxaanu iman jiray isagoo mar agaasimo ah oo intaan wasiirka noqon wasiirka Djibouti waxa day jirtay mar wasiirkeenan ciyaaraha iyo dhalinyaradu noo yimid 2017 oo Smire heshiisyo ayaa la gaaray in iswadaarsi xagga ciyaaraha tiimanka Djibouti halkan yimaadaan ku ciyaara kuweena xagga isdhexgal ah xagga bulshada ah tii baytana runtii daba socota in la sii anbaqaado oo xiriirka la sii kordhiyo xagga ciyaaraha iyo dhalinyarada isdhexgalka ah waxaad warbixin naga siisaa bal wixii ku qabsoomay muddadii aad joogtay safaaradda Soomaaliland ee Djibouti taan runtii ku horeeyo waxaan anigu tagay 2016 ayaan tagay Djibouti madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo magacaabay runtii safaaradda marka inta aan tagay waxyaabo badan baa runtii qabsoomay safiirkii ugu horeeyay runtii qudhiis wax badan ayuu sii qabtay nasiib wanaag intii aan joogay waxaan ku guuleystay ama xukuumaddeena kulmiye ay joogtayba waxa dhici jirtay berigii hore baasaboorka Soomaaliland qofka markuu yimaado madaarka lagu reebi jiray markuu magaalada galow ka soo noqdo dabadna baasaboorka la siin jiray nasiibana waxaan ku guuleysanay baasaboorka Soomaaliland qofka intuu iska tago airportka fiisaha laga siiyo waxaan kale ku guuleysanay Ilaahay ma hadii weeye in fiisooyinku qaali ah $90 baa ahayn markaan tagay iminkana runtii fiisooyinku ay marayaan $20 ilaa $25 inta u dhaxaysa maadaama anagu aan jabinay fiisooyinku markii hore waxa ahayn $60
waxaan ka dhignay $30 iminkana $16 oo Jabuuti ah marka runtii maxaa haydoy taa markaan ka nimaadno waxaa jirta in xiriirku runtii maanta meel aad u wanaagsan u marayo saday ka war haysaanba iminka tusaale ahaan haddaan soo qaato 2018 9 wasiir baa noo yimid 9 wasiir mid walba dhigiisii ayuu la kulmay qaar baa madaxweynaha la kulmay qaar baa barnaamijka runtii la kulmay qodooda taa haddaan ka gudbo 18 iyo 19 waxay markii ugu badnaa ee mas'uuliyiinta qaranku ee Jabuuti yimaadaan mar waxa bay gaareen 12 wasiir sanadadii ka horeeyna mar 7 wasiir bay gaareen oo mid walba dhigiisa iyo maqaam uu lahaa uu la kulmayay waxa laga wada hadlay marka tii ugu dambeysay waxa heshiiskii adeegyada biyaha waxa ka horeeyay boosta iyo isgaarsiinta oo wasiir Cabdiwali uu noo yimid oo heshiis la kala saxdeen boosta soo martay Jabuuti halkana laga qaado xagga laga dhoofiyo heshiisyo kala badan baa runtii jiray la wada saxday labada dawladood wadaga safar buu madaxweynuhu noogu yimid oo waxay sanadkan June 14keedii oo wada hadalada ay taasi intii aan joogayna runtii xagga safaaradaha qaabeynteeda haday noqoto qaabka dhismaha safaaradda kale wax badan baan runtii isbedel badan ayaan ku sameynay haday noqoto xagga qalabeynta haday noqoto xagga bilicda maxaa hayday safaaradda wajiga hore haday noqoto xagga baabuurta qodooda runtii waxyaabo badan ayaa runtii noo qabsoomay intii aan joognay kaligeena ma hayday team baa ila shaqeeyo runtii waxa la farqiga fool ma dhaqdo runtii la'aantoodna imay suurta gasheen iyo xukuumaddeena maanta joogta iyo xukuumaddii ka horeysayba 26 Oktoobar bishii ka horeysay labada madaxweyne runtii heshiisan ku gaarnay iskaashiga labada dhinac in la iska caawiyo haday noqoto xagga biyaha saylaco kale dadka marwar badda biyaha ayaa soo gasha in moos aan u sameeyno in runtii milixdo kale milix badan badalkeena ka soo baxato qoshi sidii iibgeen loogu sameyn lahaa dibadda dadka deegaanka ay uga faa'iideysan lahaayeen noloshooduna ay wax uga bedeli lahayd in shaqo abuur runtii ay u sameyn lahayd dadka deegaanka degan waxyaabo Luqmaan Maxamed Tarax Bulsho TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom